ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa furay maanta shirka maalgashiga Soomaaliya oo lagu soo bandhigayay sidii looga faa'iideysan lahaa fursadaha maalgashi ee ka jira Soomaaliya iyadoo laga faa'iideysanayo fursadaha jira oo ay ka mid tahay deyntii oo laga cafiyo Soomaaliya iyo ku biirista ururka dhaqaalaha bariga Afrika. Soomaaliya waa wadan qani ku ah kheyraad kala duwan. qorshaha xukuumadda qaranka waa soo jiidashada iyo dhiirigelinta maalgashi caalami ah oo dalka u horseeda isku filnaansho dhaqaale iyo shaqo abuur. mudane Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa xusay kuna dhiirigeliyay ganacsatada dibadda iyo gudaha inay ka faa'iideystaan fursadaha ka bannaan ee maalgashi Soomaaliya, isagoo xusay in fursadaha jira ay dhiirigelinayaan amniga oo soo hagaagaya iyo shuruucda maalgashiga hageysay oo la dhammaystiray tallaabooyinkaas oo damaanad qaadaya maalgashadayaasha caalamiga ah. shirka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ayaa waxaa ka qayb galay ganacsato ka socday wadamada bariga Afrika iyadoo lagu soo bandhigay fursadaha waaweyn ee dhinacyada maalgashiga ka jira Soomaaliya, kuwaasoo u baahan in lagu samaysto maalgashi si bulshada Soomaalida uga faa'iideystaan, sida uu sheegay wasiirka qorsheynta ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. marka hore waxaan ku faraxsanahay maanta inuu halkan noogu qabsoomay shir 2 maalmood soconaya maanta iyo berrito oo ku saabsan ama afka qalaad waxa lagu dhahaa Invest Somalia Conference and Expo. waa shir lagu maalgelinta Soomaaliya lagu weyneynayo oo ay ka soo qayb galeen ganacsato aad u tiro badan oo ka yimid wadamadan ku bahoobay bariga Afrika oo ay Soomaaliya mar dhow qayb ka noqotay. ilaa iyo 100 ka badan ganacsato ay yimid oo ka yimid Kenya, Tanzania, maxaan ku dhahaa Uganda, wadamada dariska u badan. waa markii ugu horeysay oo aan ugu tiro galnay inaan ku soo jiidano ganacsato maalgashato daneynaya inay Soomaaliya imaadeen. Programkan waxaa nala qabtay tiimka oo Nation Media la dhaho oo aad noola qaban qaabiyay guushan qayb ka ahaa. shirka waxaa inoo furay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo si official inoogu fura 2 maalmood oo socon doona. waxaa jiro wax la dhaho carwo oo ilaa iyo 37 kambani ay ku soo bandhigayeen alaabaha ay rabaan inay Soomaaliya qayb galayaan. shirkaana marka wuxuu ahaa shir loogu tiragalay maadaama Soomaaliya qayb ka noqotay November 2023 East Africa Community ama bariga bulshada Afrika. waxaa ugu tiragalnay inaan indhahooda ku soo jeedino Soomaaliya maadaama maalgashi weyn ay ku leedahay bangiya, hoteello ay ku leeyihiin Nairobi iyo Uganda iyo Tanzania iyo Suudaan iyo inay ayagana ay maalgashtaan. dad badan ay soo jiidatay 100 qofood ka badan waana sii wadi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. sababtaana waxaa sabab u ah inay Soomaaliya guulo waaweyn ka gaarto xagga horumarka dhaqaalaha, deyn cafinta, cunaqabataynta hubka naga qaaday, xoreynta dalka laga sameeyay, amniga Muqdisho ka jiro. waxaan oo dhan waxay noo fududeysay inaan ku soo jeedino indhaha shacabka maxaan ku dhahaa maalgashatada daneynaysa. marka guul weyn ay u ahayd Soomaaliya inay arrinta ku soo dhaweyn. ilaa iyo waxaan aan carabawnay cadaynayna ilaa iyo 10 area oo ay ka mid tahay beeraha, oo ay ka mid tahay xoolaha, oo ay ka mid tahay maxaan ku dhahaa infrastructure-ka, oo ay ka mid tahay service-ka, hoteello 10 area aan magacaawno oo mid kastaba xogteeda iyo waxeeda aan u diyaarinay. qof kasta meesha uu daneynaya asiga marka hadhow asiga si gooni u raasanayo. sidoo kale kulanka waxaa ugu faa'iideysanay dad badan oo Soomaali ah oo wada hadal u socday ganacsatada East Afrikaanka oo halkan ku kulmay oo raba inay wada shaqeystaan oo business dhex maro. soo marka qaybaha la maalgelinaya qaybtaas aad u badan waa Soomaaliya in deynta laga cafiyay culaab badan oo dusha naga saarneed ayaa naga degtay. Soomaaliya hadda waxay diyaar u tahay in la maalgashan karo, in dhaqaale lagu bixin karo oo dalkaani lacagaha ay Soomaaliya adduunyada u ogol yihiin inaan ku maalgelino waxyaabaha waaweyn ee Soomaaliya wax ugu soo noqonayaan. in deynta naga cafiyo waa rugni aad u weyn oo Soomaaliya u fududeynaya in dalkeena aad loo maalgashado. marka waa fursad weyn oo ay dawladdaani iyo dan qaran xukuumadda dan qaranba ay qayb weyn ka tahay in Soomaaliya wajigan cusub ay soo dhisay. dhanka kale waxaan sanadkii hore ku guuleysanay Soomaaliya faqrigeeda oo 69% ah in 54 uu noqdo oo 15 hoos u dhigan. waa horumarka dhaqaalaha, amniga, deyn cafinti, cunaqabataynti, ku biirista maxaan ku dhahaa bariga Afrika. arrimahan oo dhan intaas waxaa ka dana shacabka Soomaaliyeed oo dad maalgashi iyo ganacsi u diyaarsan ay tahay. niyad wanaag badan iyo dadkii nagala soo qayb galay shalay ilaa imaanta aan soo dhaweynayna caawana ganacsatadan 100 qofood waxaan u qaban doonaa casho. laakiin waxa ay ka aaminsanaayeen Soomaaliya iyo waxa ay hadda kala kulmeen farqi aad u weyn
waad dhegaysanayseen dadka halkan ka hadlaayay soo marka waa guul Soomaaliya oo dhan u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed annaga ka wasaaradda qorsheyn ahaan oo aan shirkan qabanqaabinay sharafay inoo tahay inaan arrintan guushan maanta iyo berrito ay noo socoto Soomaaliyana ay hesho dad badan oo lacagtooda iyo hantidooda ku aaminayo inay waddankan maalgashtaan hadduu Ilaahay yiraahdo. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.